in gacan lagu qabto caruurta wixii ejinaya caruurta in gacan lagu qabto caruurta in gacan lagu qabto wax badanaa idiri war caruurta yaan lagu sii dayn dariiqyada iskoolka hadday ka yimaadaan iyo buugta tuurin waa inay homeworka sameeyaan cunugu guryaha wax lagu baraa guriga wax lagu bartaa iskoolka wax lagu barto macallimiintu waxay fasirtaa ereyada dadoo waxaan leeyahay ilmaha gacan ku qabta ilmihiina wax bara insurance-ka keliya oo leedihiin waa ilmihiina xoolo wax ma taraan awlaad baa wax tarta haddaad rabtaan nolol fiican khayr barwaaqo rabtaan ilmaha gacan ku qabta ilmihiina oo tarbiyeeya ka ilaaliya wax xun anigu ilmahayga ma ogolan inay wareegaan ma aana ogolan inay qaraabasalaan iyo saaxiib iyo gabar iyo wiil iyo ay aadaan no ma aanan ogolan war walaalayaalow war ilmaha gacan ku qabta ilmaha ka daaya dariiqyada ordaya ilmaha iskoolka markii ka yimaada buugta tuuraya walaalayaalow ka ilaaliya war waxa la baro ilmaha war ilmaha waa insurance-ka kaliya isku halay kartaa dadka Soomaaliyeed kula dardarmaya faraya ku adkeynaya walaalayaalow dowladda America inta noo gashay dowlad noo gashay adduunka jirta ma jirto sidaas awgeed waxaan idinka codsanayaa in la iska ilaaliyo jisaarinimo inaan lagu jisaarin qofkii wax wanaagsan ku gala sida ogtihiin America waxay naga soo qaaday meeshii xumeed dhulkii xumaa colaadii fidnadii dilkii dhacay ayay naga soo qaaday waxayna keentay dhulkoodii waxayna siiyeen nabadgelyo guryo cunto waxbarasho waxaasoo dhan ayna siiyeen iyo intoo kale marka in lagu jisaaro anigu ma qabo waxaan idin leeyahay walaalayaalow jisaarinmaha la iska ilaaliyo jisaarinmaha la iska ilaaliyo waxaa kaloo dhihi lahay dowladda America naguma fargeliyo diintanada annaguna waa inaanan ku fargelin diinta ay haystaan waa ka mamnuuc in diinaha wax laga sheego oo qofkii diinta kale wax ka sheega sharciga qabanaya sidaas awgeed dadku waa inay nabadgelyo bixiyaan waa inaan nabadgelyo buuxda bixinaa waa inaan iska ilaalina fargelinta iyo wax ka sheega diimaha kale maxaa dhacay dembi ayaa naga fulaya na koraya haddii aan diin kale wax ka sheegno maxaa jira diintanada wax kama sheegaan wax alla abuurtaa kama sheegan marka sidaas awgeed waxaan leeyahay dadweynaha Soomaaliyeed la iska ilaaliyo faragelinta diimaha